Magacaygu waa Cabdiweli. Muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay taariikhda waddanka Kenya. Haddaba qodobada aan dul istaagi doono waxaa ka mid ah taariikhda waddankaas ee hore, sidii ay ku yimiday markiisii hore wuxuu ahaan jiray, iyo midda kale qodobka labaad oo ah juqraafi ahaan waddankan dhanka uu dhaco, jawigiisa, xaaladaha dhaqaalaha waddanka, magaalooyinka dadka ka kooban yahay. Dhammaan waxaan sheegi doonaa dhammaan waddankan xogtiisa oo kooban. Waan isku dayi doonaa inaan muuqaalkan kusoo koobno. Haddaba daawade ha iga daaline ila sii soco. Sidii caadada inoo ahayd, aan ku bilowno waddankan juqraafi ahaan dhanka uu dhaco iyo wadamada jaarka uu leeyahay. Kenya waa waddan ku yaala bariga Afrika. Waxay xad ay la wadaagtaa wadamada Tanzania, Uganda, Harta Victoria waa waddan iyadu waa har Soomaaliya iyo Itoobiya. Dhinaca barina waxaa kaga dhegan Badweynta Hindiya. Caasimadda waddanka waa Nairobi. Waddanka Kenya wuxuu la mid yahay ama uu ka mid yahay wadamada ay ku badan yihiin xayawaanada ee qaaradda Afrika sida libaaxa, waraabaha iyo shabeelka. Waa waddan ay dadka dunida u soo dalxiis tagaan oo dhaqaalihiisuna kor u sii socdo. Waddanka magaciisa oo loogu magac daray Mountain Kenya waa Soomaaliya. Buurta Kenya waa buurta ugu weyn waddanka Kenya, waana midda labaad ee ugu weyn qaaradda Afrika. Waayadii hore waxaa la dhihi jiray waddanka British East Africa, halkaas oo ay kaga caddahay inuu British soo gumaystay, waana markii uu Ingiriisku gumaysanayay Kenya iyo Uganda. Kenya waxay ku fadhidaa dhul ballaaran oo gaaraya 582,646 kiiloomitir iskuweer. Waxay ka mid tahay wadamooyinka ugu waaweyn qaaradda Afrika. Kenya waa waddanka 47aad ee ugu weyn adduunka. Haddaba waxoogaha aan yara taabano taariikhdii hore ee waddankan. Waayadii hore, intii uu waddanka soo gelin gumaysigii Ingiriiska, waddanka gudihiisa waxaa ku noolaan jiray dad iyagu ismaamuli jiray oo Bantu ah ama Jareer. Laakiin dhinaca xeebta waxaa ku ganacsan jirtay Carabta oo waqtigaasi ka ganacsan jirtay bariga Afrika. Boortaqiiska waqtiga uu maamulkiisa bilowday 1500 waxay la ganacsan jireen Carabta oo waqtigaas ay ka wada ganacsan jireen magaalada Mombasa. Dadka Bantuuga ah ee deganaan jiray gudaha dalka Kenya uma shaqayn jirin sida dadka deganaa xeebaha ay u shaqeeyaan, laakiin dadka Masaayda ah ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq dhinaca xukunka ah taariikhdu markay ahayd 1800. Laakiin dhaqdhaqaaqaas wuxuu joogsaday sanado badan kadib markii uu waddanka qabsaday cudurro, kaas oo xoolo badan dhameeyay. Waddanka Kenya, gaar ahaan dhinaca xeebaha, wuxuu markiisii hore ahaa meel ay Carabtu kaga ganacsan jirtay addoommada. Kenya waxaa qabsaday Ingiriiska taariikhdu markay ahayd 1895. Muran ayaa ka dhacay shirkii Berlin oo ahaa meeshii dhulalka lagu kala qaybsan jiray. Shirkaas wuxuu ku soo dhammaaday Ingiriiska oo qaatay Zanzibar, Kenya iyo Uganda, waxaana loogu magacaabay Ingiriiska Bariga Afrika. Markii la dhameeyay jidkii tareenka ee ku yaalay meesha biyo-degaanka ah ama biyo-fadhinka ah ee Harta Victoria 1902, waxaa lagu go'aan gaaray in ay shacabka Yurubiyaanka ah kusoo guuraan Kenya intii aysan jeclaysan waddankii la dhihi jiray Rhodesia oo ay deganaayeen markii hore, maanta loo yaqaano Zimbabwe iyo Koonfurta Afrika. Kenya waxay lahayd dhul beereed aad u weyn, dhulkaasna waxaa kusoo guuray oo degay ajaanibta Ingiriiska. Isla markaana dadkii u dhashay dalka Kenya, gaar ahaan dadka Kikuyu-ga iyo dadka Masaayda, ayaa la soo dejiyay dhulka, waxaana loo sameeyay shaqo oo wax soo saarkooda loo dhoofin jiray wadamada Yurubta. Badanaa dadka qaarkood lacag raqiis ayay ku shaqayn jireen ama amar. Kenya ugu dambeyntii waxa ay xornimadeedii iyo farxaddeedii dib u heshay 1963. Qowmiyadaha degan waddanka Kenya markii la qaybiyay iyadoo loo eegayo boqolkiiba inta ay ka tahay, waxaa la yidhi 22% waa Kikuyu-ga, 15% waa Luhya, 13% waa Luo, 12% waa Kalenjin, 11% waa Kamba, 10% waa Somali. Macnaha Soomaalidu aad ay ugu badan tahay xagga marka la eego wadamada kale. 6% waa Kisii, 6% kale waa Muru, 5% waa dadaan Afrikaan ba ahayn. Haddaba intaa iminkan kusoo sheegay ma isku soo geynaysay? Haddii aad isku soo geyso waxaa kusoo bixi doonaa 100%. Iminkana daawada iyo ogolow inaan kuu sheego
rajooyinka Kenya ay ka leedahay mustaqbalka iyo kobocooda dhaqaale. Kenya waxay samaysay isbeddel siyaasadeed oo muhiim u ah qaab dhismeedka iyo mid dhaqaale oo horseed u ah koritaanka joogtada ah ee dhaqaalaha. Horumarka bulshada iyo guulaha siyaasadeed ay gaartay 10kii sano ee la soo dhaafay. Si kastaba ha noqotee, caqabadaha ugu weyn ee horumarineed waxaa ka mid ah saboolnimada, sinaan la'aanta, isbeddelka cimilada, iyo sii wadista maalgashiga meelaha looga baahan yahay oo yaraaday, iyo u nuglaanta dhibaatooyinka dhaqaalaha gudaha iyo dibaddaba. Dib u habeyntii siyaasadeed ee ugu dambeysay ee waddanka Kenya ayaa kor u kacaysay markii loo gudbay dastuur cusub 2010kii, kaas oo soo saaray aqalka sharci dejinta, dowlad goboleed awood leh, hay'ad dastuuri ah oo garsoor leh, iyo hay'ad doorasho. Doorashadii ugu horeysay waxay ahayd 2013kii. Haddaba, bishii Agoosto 8, 2017 waxaa la baabi'iyay doorashadii madaxtinimada ee lagu qaban jiray maxkamadda sare. Sidaas si la mid ah waxaa la qabtay doorashadii madaxweyne, taasoo dhacday taariikhdu markay ahayd Oktoobar 17keedii, 2017. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxaa loo dhaariyay mar labaad iyo muddada 5 sano ah ee kama dambaysta ah Noofembar 28, 2017, kaasoo keenay nidaam cusub oo siyaasadeed iyo maamul dhaqaale oo isbeddel leh, isla markaana waxay kor u qaaday maalgashiyo ballaaran oo ka soo baxay qodobbada xoojinta isla xisaabtanka ah iyo gaarsiinta adeegga dadweynaha heerarka maxalliga ah. Inkasta oo dhaqdhaqaaqa dhaqaaluhu uu burburay kadib hoos u dhaca dhaqaalaha ee ku yimid adduunka oo dhan 2008, koritaanka ayaa dib u bilaabmay 5tii sano ee la soo dhaafay, isaga oo gaadhay 5.7 boqolkiiba sanadkii aan soo dhaafnay ee 2019, oo ka dhigaysa Kenya mid ka mid ah dhaqaalyahanada ugu dhaqsaha badan ee ka hooseeya Saxaraha Afrika. Ballaarinta la sameeyay ayaa keentay jawi deganaansho oo dhaqaale, kalsooni maalgashadayaal, hore u sii socoshada kobaca wax soo saarka guud ee xilliga dhexdhexaadka ah ee loo yaqaan GDP ayaa la filayaa inuu kor u kaco 5.9 boqolkiiba sanadkan aan ku jirno 2020, ilaa inuu gaadho 6 boqolkiiba, kaas oo ay xoojinayaan adeegsiga gaarka loo leeyahay. Sicir bararka ayaa la rajeynayaa inuu ka sii nagaado tirada bartilmaameedka dowladda, halka xisaab xumida hadda jirta la hindisayo inay ahaato mid la maamuli karo. Kobacan waxaa sidoo kale horseedi doona maalgashi muhiim ah oo socda, kaas oo lagu taageeri doono hirgelinta ajendaha horumarka ee loo yaqaan Big Four iyo hagaajinta aragtida ganacsiga. Kobacan waxa uu sii xoog badnaan lahaa maqnaanshaha xaddiga dulsaarka oo sii wadaya inuu ka gaabiyo dib u soo kabashada kobaca deynta gaarka ah. Intaa waxaa dheer in la iska xidho kobcinta dhaqaalaha iyada oo loo marayo ajendaha horumarka dalka ee qorshaha horumarinta muddada dheer cimilada 2030. Madaxweynaha bishii Diseembar 2019 wuxuu sharaxay aagagga horumarka mudnaanta leh ee Big Four ay gaadhay muddadiisa ugu dambeysa ee madaxweyne uu yahay. Big Four ayaa mudnaan siin doonta wax soo saarka, daryeelka caafimaadka guud, guryeynta la awoodi karo, iyo sugnaanta cuntada. Waxaa la yidhi Kenya waxay leedahay awood ay ku noqon karto mid ka mid ah sheekooyinka guusha ee Afrika ee kasoo ifbaxaya dadka dhalinyarada ah ee koraya, waaxda gaarka loo leeyahay ee firfircoon, xoogsato xirfad sare leh, kaabayaasha wanaajinta, dastuurka cusub, iyo doorka muhiimka ah ee Bariga Afrika. Wax ka qabashada caqabadaha saboolnimada, sinaan la'aanta dowladnimada, farqiga xirfadaha u dhexeeya, shuruudaha suuqa iyo manhajka waxbarashada, isbeddelka cimilada, maalgashiga hoose, iyo wax soo saarka adag ee hoose. Markaan ku leeyahay waxaan ka wadaa waa wax si hoose loo qabanayo si loo gaaro dhaqso heerar kobac joogto ah oo wax ka beddeli doona nolosha muwaadiniinta caadiga ah. Waxay noqon doontaa yoolalka waaweyn ee ay leedahay Kenya. Haddaba hadal iyo dhammaantii waddanka Kenya sida uu xoroobay dhaqaalihiisu kor ayuu u sii socdaa, waxayna soo saaraan sonkorta, biyaha macaan, qamadiga, khamriga, warqado, nalal, alaabta baabuurta iyo waxyaalo kale oo badan. Dadka adduunkuna waa ay usoo dalxiisaan. Dhaqaalaha Kenya maanta wuxuu gaaray dhaqaalaha ugu xooggan Bariga Afrika. Waddanka Kenya wuxuu ku dadaalayaa horumarinta shacabka Kenyaatiga iyo dhismaha dalka. Haddana waxoogaa aan ka yar hadalno jawiga Kenya. Jawiga Kenya waa kuleyl dhinaca xeebaha. Waqooyiga Kenya waa meel doog ah oo roob badan u ka di'in haddana. Roob badan ayaa Kenya ka da'a bilaha Maarso iyo Maajo.
roob yarna waxa uu ka da'aa October iyo November. Xaraaradana kuleyl ayuu ku egyahay. Qaar ba malaha xaraaradana jirin. Xaraaradda Ingiriis waa temperature, just kuleyl laakiin weyn. Dhinaca magaalooyinka haddaan u yar leexano, waxa ugu soo horeysay Nairobi, waddankan caasimadiisa. Waxaa ku nool 3 milyan oo qof. 3 milyan baa ku nool laakiin inta ugu horeysa ma ku sheegay waa 3 milyan oo qof. Waxaa ku xigta Mombasa, waxaa ku nool 707,000 oo qof. Kisumu baa ku xigta, waxaa ku nool 322,000 oo qof. Nakuru ayaa ku xigta, waxaa ku nool 319,000 oo qof. Waxaa ku xigta Machakos, waxaa ku nool 144,000 oo qof. Magaalooyin kalena way jiraan, waxaana ka mid ah Santale, Kostira, Orontale, Northern-tale, Nyanza, Occidentale, iyo magacyaadka beesha. Intaas ayuu muuqaalka waxaan aad iyo aad uga cudur daaranayaa oon doonayaa inaan idiin sheego haddii labada muuqaal intay isku jiraan magaraysa labada muuqaal aan soo gelinaya waqti dheer hadday isku soo jiraan waa xaggayga waayo waxaa lagu jiraa hadda sanad waqtiga bilahan waxa weeyaan waa xilliyadii sanad dugsiyeedyadu dhammaanayeen anna waxaan ahay arday jaamacadeed marka igu qaata muuqaalkeenana intaan u keegayaa intaan sugi mayno muuqaalka kan ku xiga